70 men born in Franklin County fought for their freedom, their citizenship, and the Union in the Civil War. maadaama aan ku guda jirno bisha taariikhda dadka madowga ah ee wadankan Mareykanka lagu xuso ee ka bilaabanayso 1 Febraayo sanadkan 2026 ka soo bilaabatay oo ku eg 1 bisha March ee 2026 bisha saddexaad taariikhdaas ama taariikhda dadka madowga ah ayada oo la xusayo ayaa gobolka Virginia waxay xuseen ilaa iyo 70 nin oo madow ah oo gobolkaasi u soo halgamay waagii uu macnaha kala qaybsami lahaa oo Western Virginia iyo Eastern Virginia ay u kala qaybsami lahaa gobolkan dadkii u soo halgamay oo gobolkan u dagaalamay in uu kala qaybsamo ama la sii kala gurana ama secessionka ka soo horjeedsaday ay ku jireen dadka balaaga ah taariikhda ama taariikhaha la xuso ee dadka balaaga ah ee wadankan ama Black Americanka ah Black History Month lagu magacaabo ama bisha macnaha lagu xuso dadka madowga ah ee wadankan Mareykanka u soo halgamay ayaa waxa macnaha lagu maamuusay ayada oo taalo loo dhisay sample-na laga soo qaatay askari kamid ah 70kii askari ee u soo halgamay gobolkan in ay ka saaraan secessionka ama kala qaybinta ayada oo dagaalkaasi uu socday 1861 Abriil ilaa iyo 1865 Abriil waa markii Mareykanka uu xorriyadda qaatay adigu wax yar uun kadib ama uu ka xoroobay gobolada Mareykanka oo dhan ay ka wada xoroobeen Ingiriiska ayada oo taariikh dadka balaaga ah maanta aad loo hadalhayo oo Mareykanka oo dhan dabaaldegyo dadka balaaga ay sameeyaan ay isqabsadeen meel kasta ayada oo gobolka Virginia uu noqonayo gobolkii ugu horeeyay oo macnaha shakhsi ama dad madow ah oo wadankan u soo halgamay sidaas u maamuuso tani waxay imaanaysaa ayada oo haweeney dimuqraadi ah ay ku soo baxday in ay noqoto gabanaha gobolkan lagu magacaabo Virginia bishii la soo dhaafay isbuucyadii la soo dhaafayna la dhaariyay in macnaha ay ka sii ambaqaado bartaas gudoomiyaha gobolka Virginia dimuqraadiga ama xisbiga dimuqraadiga ah sidoo kale waxa taariikh gashay in gobolkan guulo waaweyn uu gaaray guulahaasi ay ka mid yihiin haweeneydan in macnaha dadka ay aad u amaanayaan ay tahay macnaha ku tilmaamayaan haweeneydan loo doortay gabanaha gobolkan Virginia in macnaha waxyaabo badan furfurtay oo xitaa gobolka Virginia 4 degmo oo heer congress ah oo baarlamaanka Mareykanka ku matali doono sanadaha soo socda congresska oo doorashadan macnaha la sii ambaqaadi doono 2026ka ilaa iyo 4 degmo ku soo dartay taas oo ka dhigan 4 kursi oo heer congress ah in gobolkani uu kordhiso waxaana uu shaki ku jirin in ay hogaamin doonaan sanadaha soo socdo waliba ay aad macnaha sheegay sanado isxixigi doono ay u hogaamin doonaan aqalka congresska ama aqlabiyadda ee ayaga la wareegi doona aanu ku horeen dadkan balaaga ah ama askartan u soo halgamay gobolkan Virginia ee looga baqaayay in uu kala go'o Western Virginia iyo Eastern Virginia oo taasi ay ka hortageen oo hadda Virginia Commonwealth ay tahay uu leeyahay gobolkii ugu qadiimisanaa ee Mareykan gobolada ugu qadiimisan uu ka mid yahay gobolkan Virginia oo Ingiriiska goboladii ugu horeysay oo macnaha uu gumeysto inta dhulka intiisa kale macnaha ay sheegay gumeysigu aanu gaarin ayuu ahaa gobolkan marka taariikh intaas la eg sidoo kale gobolkan ayaa waxaa degan dadka ugu tirada badan ee blaaga ah people of color waxa ay ku magacaabaan dadka Amerikaanka ah muuqaalka maamuusta ah aanu isla daawan waxay 70 men born in Franklin County fought for their freedom, their citizenship, and the Union in the Civil War. Now, their service is permanently enshrined within a 14-foot bronze monument outside First Baptist Church in Rocky Mount. And to the 70 soldiers of the United States Colored Troops from Franklin County, we remember you, we honor you, and we thank you. In 2020, a voter referendum blocked an attempt to relocate a Confederate statue outside the Franklin County Courthouse. In response, the Franklin County NAACP and community support madaxweynaha gobolka lagu magacaabo Franklin County ee gobolkan Virginia ayaa macnaha isheegay bartaasi wuxuu ka sheegayaa in uu ku maamuusayo dadkii madowga ahaa
ee u soo halgamay gobolkan. Sida aan ognahay Virginia waxay u dhaqmaan sida wadan oo kale ayay u dhaqmaan, laakiin still waa state ka tirsan laakiin macnaha maadaama Commonwealth of Virginia lagu magacaabo county ayay u sii kala qaybsan gobolada Mareykanka oo kale, laakiin Commonwealth gobolada kale lama dhaho oo gobolkan Ingiriiska ayaa macnaha isheegay gumeystay si gaar ah goboladii ugu horeeyay oo Ingiriiska u qabsado ayayna ahaayeen dadkii madowga ahaa oo u soo halgamay dhulkan iyo in uu kala qaybsamo West Virginia iyo macnaha isheegay dagaalkii dhaxmaray oo Unionka halkaasi lagu soo dhisay intii ay kasii kala qaybsami lahaayeen ee gobolka Virginia uu halkaasi ku midoobay. sidoo kale governaha gobolka Virginia haweeneyda lagu magacaabo Spanberg ayaa waxay macnaha saxiixday ama qalinka ku duugtay sharci soo dhaafay qolooyinkan senatorada ah ee gobolka Virginia ayada 4 degmo ku dhawaaqday in lagu soo daray gobolkan 4taasi degmo oo aan hore u jirin, taas oo faa'iido weyn u ah qolooyinkan dimuqraadiga ah in aqalka Koongareeska aqlabiyadiisa ay la wareegaan doorashadan soo socoto ee November 2026. On this one, our fourth and final one is the redistricting amendment. This is the work of the legislature. It's recognizing that Virginia has the opportunity and the responsibility to be responsive in the face of efforts across the country to change maps, that Virginia is moving forward with this temporary and responsive effort to redistrict. Now I know there's many press in the room. There are multiple steps. This is the one that will enable us to move forward with this referendum. Governaha gobolka Virginia Abigail ayaa waxay ka sheekeynaysaa sida ay muhiim u tahay in 4 degmo lagu soo kordhiyo gobolka Virginia oo waliba heer federaal degmooyin heer federaal ah ama Koongareeska in lagu soo kordhiyo waxa ay uga dhigan tahay. sidoo kale arintan ayaa iska caabin ama macnaha ay sheegay in la iska difaaco Donald Trump iyo waliba jawaab culus oo ah maadaama uu gobolka Texas dhowr qaybood oo kamida uu kala qaybiyay oo degmooyin aanay hore u jirin ka soo saaray asaga oo raba in uu ku boost gareeyo qolooyinkan Republicaanka ah, laakiin waxaasi oo dhan ayaana suurtagelaynin oo sababtu tahay qolooyinkan reer Texas markii horeba ayaga sanka laga gelgelin jiray in Republican ay u codayaan ayaa hadda soo jeedsaday maadaama ay ogaadeen dadka loo socdo inay ayaga yihiin ayna u badan yihiin Latinos iyo Black American. Arrintan ayaa jawaab xoogan u ah Donald Trump iyo teamkiisa iyo degmooyinkii ay soo dhoobahayeen in macnaha ay sheegay maadaama laga kari waayo Donald Trump ka joog degmooyinkan aad sameynay si uu u badsado kuraasta Koongareeska. Mareykanka ayaa hadda wuxuu isku bedelayaa aad loogu loolamo oo lagu hardamo oo gobolada Mareykanka iyo dawladda federaalka ah ay aad iskugu hayaan gobolada Republicaanka iyo waliba dimuqraadiyiinta. gobolada Republicaanka Donald Trump faragelin xoogan ayuu ku wadaa si uu uga soo saaro degmooyin aad u fara badan oo hoos imaado ama uu asaga si uu u maamusho doorashooyinka soo socdo. wixii uu sameyn karo oo qolooyinkan dimuqraadiga isku sameyn karo ama weerar ha noqoto ama macnaha ishaga in uu kula dagaalamo ama degmooyinkii u dhaw waxba kama jiraan weey ayaa sidoo kale debate-kaas ayaa meesha ka baxayo maadaama hadda ciyaartu ay marayso fair game oo macnaha degmooyinkii asaga uu soo kordhiyay degmooyin ka badan ayaa la soo kordhiyay oo heer federaal qalinkana ay ku tugtay governaha gobolkan Virginia. haddii uu muuqaalkan ku soo gaaro wax fikirkaada nala wadaag muuqaalka like noo saar haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biiro channelka subscribe noo saar waan mahadsantihiin.